kulanti wanaagsan dhamaantiin badawadayaal meel walba aad joogtaan halkani waa Somali Freedom aniguna waa Idris Iimaan ku soo dhawaada muuqaal cusub wali waxaan halkeedii ka sii wadnaa warbixinada taxanaha ah iyo muuqaalada gaarka ah oo aan ugu tala galnay daawadayaashayda qiimaha badan ee aanu goor kasta u soo gudbino kulanti haboon dhamaantiin badawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkeena idiin soo gaarayo waxaan ahay Idris Iimaan halkani waa Somali Freedom ku soo dhawaada fadhi cusub oo kamid ah fadhiyada taxanaha inoo ah oo maalin walba aanu ku soo qaadano mowduuc gaar ah oo aanu ku lafagurno haddii eeba uu raali ka noqdo muuqaalka kan waxaynu ku soo qaadan doonaa maxaa Soomaaliya horumarkeeda ku gudban waa weydiin maangal ah dhamaantiin ama intiina badan aad u raadinaysaan jawaabo waafi ah oo suuragal ka dhigi kara xaqiiqda jirta iyo culays ka taagan waxa sababta u ah rubuc qarni ku dhow sida aad wada ogtihiin dadaal aan hakad lahayn ayaa loogu jiray dib u hanashada dawlad dhexe oo haykal adag ku istaagta dalka dhaca Geeska Afrika wuxuu ku saansan yahay dalalka dib u dhaca dabadiis soo kabanaya muddo dheer oo uu jihada ku toosan jidka lagu gaaro dawladnimada ka habaabsana ugu dambeyntii wuxuu helay wadadii uu ku tagi lahaa guryasamida sida ka muuqata dadaalka wadajirka ay haatan Soomaalidu dhan ay intooda ugu badan uga midaysan tahay bal dalkan sidii loo badbaadin lahaa Soomaaliya ah dal hodan ku ah dabcan dihin iyo duunyaba wuxuu mar noqday mid kamid ah dalalka ugu sareeya Afrikada xorta ah hase yeeshee heerkaas mar aynu tiigsanay wali kuma filna inaynu si ballaaran ugu faano waxqabadkeena Soomaaliya ah dad iyo deeqba isku dheelitiran sinaba looguma magacaabi karo wadan sabool ah sida dabcan cilmi baaris badan oo la sameeyay lagu xaqiijiyay haddaba maxaa Soomaaliya dib u dhaca u keenay halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa waxyaabaha dib u dhaca ku haya horumarka Soomaaliya oo dad badan ay isweydiinayaan ilaa ay haatan maxaynu uga soo kaban la'anahay qaranjabkii inagu dhacay walina asaageena aan wax ula qaybsan la'anahay annagoo dib u dhaca iyo musiibooyinka wali gacmaheena aanu isugu geysanayno aan uga talaabi lahayn arrimaha ugu waaweyn waxaa kamid ah midnimo la'aan ku dhex jirta Soomaalida ma jirto shucuur wadaniyadeed si la mid ah musuqmaasuq hufnaan la'aan iyo garsoor darri ayaa ah inta aanu soo calaamadeyno iyaga ayaana mid u dul istaagi doonaa hadaan ku bilaabno mid ugu horeyso ah midnimo la'aan ku dhex jirta Soomaalida Soomaaliya waa dal ay ku nool yihiin dad ka wada midaysan dhaqan dhiig iyo dhulba waa wadan ay dhif tahay in isaga oo kale dunida lagu arko waxaa jiray xilli Soomaalidu guurisamo ku wada noolaan jireen xilli ay gacmaha isku dhiibeen si ay midnimada u adkeeyaan macna malahan in gumaystuhu uu u kala dhantaalay dabcan in gumaystuhu kala dhantaalay wada jirkooda hase yeeshee hadda dad wax yar oo qabyaalad la yiraahdo ku xidasiibaya milgaha midnimo ama milgada midnimo way adag tahay inay horumaraan inkasta oo hogaamiyaal badan isku dayeen inay dabcan midnimada ka shaqeeyaan xubno dhowr ah oo hogaanka ku jira ayaa qabyaalada u adeegsada inay danahooda ku qabsadaan taasoo si kala dishay midnimada Soomaalida ma jiro qaab ay Soomaaliya ku hormari karto iyadoo aan midnimo la helin midnimana la heli maayo inta qabyaaladu qiil leedahay qodobka labaad ma jirto shucuur wadaniyadeed sababaha ugu weyn ee ay Soomaaliya u hormari laadahay waa muwaadiniinteeda qof kasta uu ku uursan yahay inuu eegto sida dalkiisu haadaanta uga sii dhacayo badi inteena wax baratay heerka dunida maanta ku sii socota iyo sida aan isu dabcan kala dhiganay fikir kama haystaan dal badi aqoon-yahankiisu garan la yahay sida loogu jeesto horumarintiisa way adag tahay in dal shisheeye oo dan gaareed leh horumar laga sugo dadku waxay dhahaan siyaasiyiintu waxay ragaadiyeen mustaqbalka dalka haddana qofna diyaar uma aha inuu isbedel yar ama qaado Soomaalidu way u siman tahay ka wada shaqeynta horumar ee dalka mana aha wax dawlad oo kaliya lagu sifayn karo taas wax qabadkeeda iyo ka shaqeynteedaba arinta saddexaad sida ka muuqata dabcan haatan dadku waxay xaqiijinayaan musuqmaasuq mid kamid ah waxyaabaha ugu weyn ee horumarkeena ku gudban waa musuqmaasuqu wuxuu ka jiraa meel walba shaqaalaha dawladda ee dabcan calooshooda u shaqeysta oo aan danta guud isu hawlin waa musuqley
falalka musuqnimada ah oo ay dabcan xubno maamulka ka mid ah ku kacaan ayaa dowladnimada ka dhigtay wax laga shakiyo. dabcan jiritaankeeda muwaadinka kalsooni kuma qabo dowladiisa meel musuq kala dhantaalayo. dadka Soomaaliyeed muslimiin inay yihiin dabcan haddana Soomaaliya waa halqabsiga tusaale ee musuqmaasuqa dunida, taasoo islaamkuna uu meel adag ka istaagay ku dhaqankeeda. xitaa ku tilmaamidaas foosha xun waxay sawir qaldan ka gudbisay haybadii islaamka sida dadka qaarkood ay rumaysan yihiin. qodobka afraad waa hufnaan la'aan. caafimaadku waa u muhiim bani aadamka si loo sugo fayaqabka habboon. nadaafada bilic leh ayaa loo baahan yahay. ha yeeshee Soomaaliya waxaa ka jira usku qashin iyo qurun meel badan, taasoo xaaladda nololeed ee dalka dabcan ildaraysay. dadku meeshii ay marayaanba waxay ku shubaan qashin meel jidadka la marayo, sidii bulaacad wasaqda loogu qubayo. waxaa adkaanaysa isku socodka dadka iyo ganacsiga. ka sokow dhibaatada caafimaad darri ee ka dhalan karta, tani waxay il u noqotay faafista cudurro dhowr ah oo nadaafad darri salka ku haysa. haddii 5 qofba midkood laga yaabo inuu dabcan ku bukoodo cudurro ka dhashay hufnaan la'aan, way adag tahay in horumar la sameeyo. bilicsamida guud ee dalka waxay faa'iido badan u soo jiidaa dadka iyo dalka. caafimaadsan, isku socod sahlan, iyo in dalku helo dabcan dalxiisayaal u soo daawasho taga mustaqbalka waxay ku tiirsan tahay in la ilaaliyo hufnaanta dalka iyo dadkaba. qodobka ugu dambeeya ee dabcan shanaad waa garsoor darri. mid ka mid ah waxyaabaha Soomaaliya horumarka u diidan waxaa ugu weyn caqabad darrida. cadaaladdu waa dabcan biladeeyaha shacabka ka eega wax qabadka dowladnimo. haddii cadaaladdu hagaagto, xiriirka iyo kalsoonida shacabka iyo dowladda ka dhaxeeya ayaa dabcan hagaagaya ama dabcan wanaagsanaanaya. helidda garsoor mid oo madax bannaan iyo sidoo kale sida ka waa helitaanka garsoor oo mid ah oo madax iyo mijaba ay ku wada qancaan waxa ay nagu ridi kartaa dhabaha habboon ee gaarista barwaaqo iyo baraare. sidoo kale shacbi weynaha Soomaaliyeed qudhooda iyagu way qirsan yihiin sida xaaladdu ay tahay, jawiga uu yahay. dadka laftigiisa sisteeman isuguma gar qaadaan sababo jira awgeed, sida qabyaaladda. meelaha inta badani shacbigu garsoor xumida ku falaan waxaa ka mid ah fursadaha shaqada iyo waxbarashada, kala horumarinta bukaanada cisbitaalada, qaab ina adeersi ah iyo sidoo kale wax la mid ah. waa in hadba la joojiyaa dabcan namuunka nintooxsi ee kala dilaya uurfayoobida ummadda Soomaaliyeed. halkan waxaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuciini gaarka ah ee aanu uga hadlaynay maxaa Soomaaliya horumarkeeda ku gudban, oo aanu ka soo qaadanay in ku filan oo mowduucaasi aanu isleenahay way ku jirtaa ka hadalkeeda, dadkuna in loo biyaamiyo waa ay ku habboon tahay. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka muuqaalkeena. muuqaalo kale ayaa dabcan inaga sugtaan haddii eeba uu raali ka noqdo inta habtibintayada aad la jaan qaadaysaan. haddana muuqaalkii waa inaga intaa. Fuaad Cabdirasaaq Gurey ayaa dhanka muuqaal duubista iga caawiyey, anigoo Cidruus Iimaan ayaa idiin warramayay. idinkuna nabaadiino.